لا 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 لا. طعم الدنيا اتغير، فرحة قلبي بتكبر، وبطلتك بتغير، ما أحلك يا رمضان. أنا دايما بستنى، على قلبي ما أغلى، يا رب بلغنا. السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا لهانتي بمير وبقى أدون كجوكتين وان إذن سلام وحن إذن الله سؤال هذا جنال كينا فرحي في السنة وفي الشيال وحان رجينا يا إن عدنا كميتها أصحابتين هورنا ولا جوك سؤال جنال كينا دي عد كميتها أصحابتين عصب وانكو فرح سنة إنا نوصل بيرتو maanta waxaan idin wadaa wax iga yaabiyay aniga hadii adinka ka yaabiyay bal comment inoo soo qor. waxaan arkay taraatole mashalay tole waxaan arkay nin ilaahay baa weyn oo hadana aanan sooneyn. marka waxaan ka hadli rabaa dadka aanan soomin oo iyadoonan xanuunsaneen soo ilaahay inuu yiri inaa xanuunsan tahay, inaa safar tahay, inaa xeer ku joogo masdalmada masnifaaska oo gabdhahan. marka inta qofkaas isagoona lahayn wuxuu ku afuraa Allah subhanahu wa ta'ala xaqiisa waa ka khalad, anaga adoomihiisa hadaan ahaan qaladay nolol tahay. marka soo dhawaada dhamaantiina waa ku mahadsantihiin inaad ka mid noqotaan asxaabta iyaga. haduu ilaahay idmo intaas ka hadli doona idinka wixii fikirkiina waa nala soo wadaagi doonta haduu ilaahay idmo. والله أنا الله يا وي أنا شخصي أهانتي لما مركي أركي قف وين أو هذاني صدم بري أو كلية وما هبينكي ولا عنايو معنتي بس لوي 8 ساعات والله مؤمن لنا إنه جر هدو جرنا قف كسوا قف خسارة قف أنا صامين وحوم رجودا معنتي عيدة waayo xiliga Afrika loo baro waqti oo murugooda xiliga Afrika iyo xiliga oo maalinta ciida oo dhamaantood laga furay wuuna shalaayay marka walaal inta aadan shalaynin ka hor hadda iska soon waa Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu kaliya oo ka xisaabinay waay wuxuu adoonkayga amaashiisa asaa iska leh markii laga reebo ramadaanka. marka walaal waxa kuugu la dardaarmi lahaa aniga iyo nafteydaba inaad bisha ramadaan kaliya hal bil waay halkaas bilna inay si beebeen ay kaaga tagin Allah subhanahu wa ta'ala uu ka xisaabin doonaa. hadii aad xanuunsan tahay Allah ayaa ku dhahay hazamin way xanuun aan la soo mirkarna jirto xisaabso maalahaas dib ka soo son. marka intaasna iyadoo la soo maray wax wadadaas dheer loo soo maray ina adiga beebeen iyo malaysi iyo waxa muhiim ku ah inaad ka soo qaadid maaha. Allah subhanahu wa ta'ala maalinta yawm al-qiyaamo uu ka xisaabin doonaa bay bidoon ka xisaabin doonaa maalin ayaa jiri doonta qofka adoonka ilaahay markuu amaashiisa ka xisaabinayo aan laga tagaynin hal qalad oo hal maalin ku dhacay balse Allah subhanahu wa ta'ala waa cafiyay waa naxariistay waa midka adoomadiisa mar waliba u samafalo. marka inta ku mooday Allah subhanahu wa ta'ala ka dambi dhaaf weydiiso Allah subhanahu wa ta'ala xaqiisa dambi dhaaf weydiiso bilaa inaad suntid kadibna Allah subhanahu wa ta'ala uu ka cafin doonaa insha Allah kadaalna ka soo soon. inta hadda joogtidna hadda soon waa Allah subhanahu wa ta'ala adoonkiisa uu naxariistaa ma fiiriyana qalad uu ku dhacay. qalad waxa weyn khaladaad badan galna Allah subhanahu wa ta'ala nooma qabto haduu noo qaban lahaa adduunka wax saarnaan lahaa meesha jiri lahayn oo mu'min wala munaafiq dambigooda ayaa lagu qaadi lahaa. marka Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu farayaa inaan qeyrka isku dardarno shartan iska reebno. Allah subhanahu wa ta'ala ayaa wuxuu leeyahay wanaag isfara shartan iska reebo. marka qof walaal oo ku jecel oo qeyr kula jecel baa ku dhiirgelinaa in aad waxyaabaha qaladka oo Ilaahay raalka aad samaysid. Ilaahay wuxuu kalento leeyahay ku rumeeyay maalinta yawm al-aakhiro iyo maalinta yawm al-aakhiro ku rumeeyo wanaag isfaro leeyahay xumaantana iska reeba
anna waxaan idin naxariisan doonaa marka Allah hanoo naxariisto Allah kuugu dambi dhaaf hanagu daro Ilaahay subxaanahu wa ta'ala kuwa acmaashooda acmaal khayr leh kan hanaga dhigo kuwa soonkoodi salaadooda la aqbal Allah subxaanahu wa ta'ala hanaga dhigo intaas ku soo afmeera haduu inta mid lacayna ku kulmi doono waxaan idinkaga teeginaa sidaas iyo amaana Allah ha inaaga hilmaamin share commentiga subscribe inta waxay inoo yihiin dhiirigelin insha Allah adigana waxaan ku leenahay hadii aad ka mid tahay asxaabta aan soomneen soon Allah subxaanahu wa ta'ala wuu kuugu naxariisan doonaa qalbigaaga raxmadu ku soo gelin doonaa hadii aad ka mid tahay asxaabta sooman waa ku mahadsan tahay Allah ajri iyo xasanaad ka siiyo acmaashaadan Allah mid kugu aqbal ha ku daro kuna soo qor commentiga dhiirigelin hal oraah aad ku dhiirigelinaysid walaalkaaga ana soomin salaam